السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan ka hadlaynaa NFT ama farshaxanka digitalka ah balse marka hore intaynu ka hadlin aynu fiirino farshaxanka caadiga ah ee labada yaqaano ee la taaban karo farshaxanka gacanta lagu sawiro ayaa qiimo ka leh suuqyada adduunka lagu kala iibsado farshaxanada ayaa badanaa lagu soo bandhigaa mataxafyada adduunka farshaxanka ugu qiimaha badan adduunka waa sawirka Mona Lisa waxaa sawiray artistaha ugu caansan adduunka oo loo magacaabo Leonardo da Vinci sawirka Mona Lisa qiyaas ahaan waxaa la sameeyay 600 oo sanadood ka hor waxaana sanadii 1962 lagu qiimeeyay $100 milyan oo dollarka Mareykanka ah haddii qiimahaas aynu isku celcelino qiimaha maanta uu joogo wuxuu noqonayaa 870 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxaan hadda fahnay qiimaha uu yeelan karo farshaxanka caadiga ah aan hadda u gudubno farshaxanka digitalka ah ee NFT waa maxay farshaxanka internetka ee loo yaqaano NFT waxaa laga soo gaabiyay non fungible tokens si aan u faahno macnaheedu guud waxaan tusaale u soo qaadanaynaa lacagta 100,000 shilin Soomaali ah waxay ku qiimo tahay ama la eg tahay shilin kale oo lacag Soomaali ah sidaas darteed lacagtaas lama dhigi karo waa lacag gaar ah maxaa yeelay waxaa jira lacag kale oo 100,000 shilin Soomaali ah oo dhiganta iyada balse farshaxanka NFT ma jiraan wax u dhigma farshaxanka NFT ayaa ah hanti gaar ah oo aan jirin wax u eg ama la eg NFT waxa noqon kara alaab gaar ah iyo wax walba oo kale waana inay kaligeed adduunka ka jirtaa NFT waxay leeyihiin nambaro gaar ah mid walba waxaana lagu kaydiyaa blockchain oo ah system aan la jabsan karin la bedeli karin oo loogu talagalay inuu jiro weligiis hantida NFT ayaa qiimaheedu ku xiran yahay inaanan jirin wax iyada la mid ah oo ay yihiin hanti asal ah waxaana lahaanaya qofka iibsaday oo kaliya hantida online-ka ee NFT ayaa waayahan ku soo badatay dunida virtualka ama si kale haddaynu u dhahno dunida ku dhisan internetka waxaa bilaabatay in NFT ahaan loo iibiyo muuqaalo sawirro digital ah qoraale iyo wixii la mid ah oo unique ah waxaana ka mid ah kuwa aan halkan idinkugu soo gudbin doono Every Days The First 5,000 Days farshaxankan waxaa lagu iibsaday 69 milyan oo dollarka Mareykanka ah waa sawir ka kooban 5,000 oo sawiradood oo la isku geeyay waxaa lagu iibsaday lacag dhan 69 milyan oo dollar ah waxa uu noqday sawirkii ugu horeeyay ee digital ah oo lacag intaas la eg lagu kala gatay lambarka labaad NFT ugu qaalisnaa ee la gato waa qoraalkii ugu horeeyay ee Twitterka qoraalkan ayaa lagu gatay 2.9 milyan oo dollarka Mareykanka ah farshaxanka internetka ee NFT waxaa sidoo kale lagu gatay qoraalkii ugu horeeyay ee ebid lagu daabaco barta Twitterka waxaa daabacay Jack Dorsey oo ah ninka sameeyay Twitterka wuxuuna sanadkan ku iibiyay suuqa xaraashka ee NFT lacag ku dhow 3 milyan oo dollarka Mareykanka ah qoraalka uu soo dhigayna wuxuu ahaa sidatan just setting up my Twitter waxaan kaliya samaynayaa Twitterkayga farshaxanka saddexaad ee ugu qaalisan waa CryptoPunk 3100 NFT-gan ama farshaxankan ayaa lagu gatay 7.8 milyan oo dollarka Mareykanka ah CryptoPunk waa farshaxankii ugu horeeyay ee internetka NFT haddaba ha ilaabin markaan ku yiraahdo sawirkan aad arkaysaan waxaa lagu kala iibsaday lacag ka badan 7 milyan iyo bar oo dollarka Mareykanka ah sawiradan ayaa waxaa soo saaray ama sameeyay nambarada uu ku shaqeeyo Ethereum blockchain oo ah systemka kaydiyo nambarada lacagta Ethereum-kana waa lacagta online-ka ay qiimo ahaan ku xigta Bitcoin-ka NFT-ga afraad uu qaalisanaana waa muuqaal YouTube la soo dhigay 2007 muuqaalkan ayaa ciwaankiisu ahaa Charlie Bit My Finger waa video barta YouTube-ka lagu daabacay 40 sano ka hor waxaana macquul ah inaad badankiina aragteen waxaana dabayaaqadii bishii May la dhigay hantida NFT waxaana lagu kala iibsaday $760,999 waxaana gabi ahaanba originalka muuqaalkan laga saaray barta YouTube-ka waxaana muuqaalkan daabaday dad gaaraya 884 milyan